wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Axmed Cumar Islow ayaa ku eedeeyay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Marwe Khadiija Maxamed Diiriye inay caqabad ku tahay horumarka ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dalka. Axmed Cumar Islow wasiir ku-xigeenka ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda aysan waxba ka qaban horumarka isboortiska, taa beddelkeedana xiriirada kubadda cagta ay ka shaqeeyaan horumarinta isboortiska. Waxaana uu sheegay muddada 3 sano ay wasiirada Khadiija ay joogtay wasaaradda inaysan samayn wax horumar isboortis ah, isagoona hoosta ka xariiqay in ra'iisul wasaaraha dalka marar badan uu ka qayb qaatay dib u dhiska garoomanka ciyaaraha ee dalka. wasaaradda isboortiga runtii mandatekeedu ama qorsheedu uu yahay horumarinta isboortiga runtii isla markaasna ay hoosimaadaan xiriirada isboortiga runtii waxaan aaminsanahay qorshihiina loogu idmay loogu talagalay ee dawladdu ay noo idmatay ahayd inaan horumarinta isboortiga ka shaqeyno isla markaasna horumarinta dhalinyarada aan ka shaqeyno agaasimayaasha waaxyaha iyo wasaaradda inteeda badan diyaar ay u tahay, laakiin cilad jirta awgeed wasiirka wasaaradda ugu sareeya ayaa runtii muddo 3 sano ah runtii aan aaminsanahay inaysan wax horumar aysan ka sameyn arrimaha isboortiga. taas dhibaatada ugu weyn ee horumarka isboortiga uu la horumari waayay tahay. horumarka hadda la gaaray waxa si gaar ah u leh oo mudnaanteeda iska leh xiriirada isboortiga iska leh. annaga wax contribution ah oo aan ka geysanay ma jirin. qeyr Allah siiray wasaaraha xukuumadda ayaa runtii dhowr jeer arintaas horumariyay asagoo runtii dhagax dhigay garoonka Baydhabo isla markaasna gaalkacyo dhagax dhigay isla markaasna hadda garoonka tulada ciyaaraha aad u jeedaan horumarka ka muuqdo oo maanta dib u soo kabanayso xukuumadda ayaa qayb ka ah wasaaraha ayaa sameeyay. Axmed Cumar Islow ayaa ka dhawaajiyay in agaasimayaasha waaxaha iyo maamulka wasaaradda ay kaga horgudban tahay horumarinta isboortiska wasiirka, isagoona ku eedeeyay wasiir Khadiija inay horumarka isboortiska hor istaagtay sharcigana ka tallaabtay. waxaana uu sheegay inay kaga mashquushay dana siyaasadeed, isagoona sheegay in wasiirka ay un amaanto madaxda dowladda ayna ka gaabisay socodsiinta wasaaradda iyo miisaaniyadaheeda. waxaana uu baaq u soo jeediyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. wasaaradda la rabay inay horumarinta isboortiga wasiirka ugu horeeyay waxay gacan qabatay agaasimayaashii iyo aniga wasiir ku-xigeenka ah waxay noo diiday inaan horumar dalka aan ka sameeyno isboortiga aan ka sameeyno, taasoo ah midaan la aqbali karin. wasaaradda isboortigu ma aha wasaarad siyaasad ka shaqeysa, waa wasaarad arrimo bulsho oo loogu talagalay horumarinta isboortiga in laga shaqeeyo. waxaa la diiday isboortiga in la horumariyo qarashaadkii loogu talagalay isboortiga in lagu horumariyo. muddo 3 sano ah miisaaniyadda ugu afraad hadda baarlamaanka la geenaya $1 looguma talagalin isboortiga. qaranka xulka qaranka markuu baxayo xataa tigrada xataa wasaaraddu ma awoodin bixiso. horshahaas xukuumadda diyaar ay u tahay, laakiin waxaa hor istaagay oo fulin waayay wasiirka fulin waayay. sidaas daraadeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay dhalinyarada isboortiga jecel iyo dhalinyarada kalaba in 3 sano ay noqotay wasaaradda waa diyaar, dad aqoon-yahana waa joogaan, laakiin barbareemka wasaaradda wuxuu noqday wasiirka ugu sareeya wasaaradda ayadoo runtii sharcigana ka talaabaysa isla markaasna dana siyaasadeed ku mashquulay. horumarka isboortigu siyaasad ma aha, horumarka dhalinyaraduna siyaasad ma aha. sidaas daraadeed waxaan idinku wargelinayaa annaga dhalinyaro ahaan diyaaraan nahay, mar walba isboortigu waa socdaa, dadku waa jecel yihiin dhiigooda isboortigu ku shaqeeya, horumarku ku shaqeeya, laakiin qofkii mudnaa la rabay wasaaradda in la keenay lama keenin. sidaas daraadeed madaxdu waxaan leeyahay in la idin amaano oo social media laga amaano madaxda ugu horeeyay wasaaraha iyo madaxweynaha la yiraahdo libaax laba ma aha, qaranka lagu baabi'iyo oo musuqmaasuq iyo cadaalad darro looga shaqeeyo, taas mid aan aqbali karna ma aha. haddii xasaanad xildhibaan wasiir lagu noqday ma aha in isboortiga dhalinyarada lagu baabi'iyo. ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Axmed Cumar Islow ayaa galabta garoonka kubadda cagta Engineer Yarisow ee degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho ka furay tartanka Soomaali Astaan oo u dhaxeeyay ciyaartooyda ka timid dalalka Scandinavian-ka gaar ahaan dalka Ingiriiska, isla markaana galabta ciyaar la ciyaaray kooxda Horseed oo ka mid ah kooxaha Soomaaliyeed. Cabdicasiis Ibrahim Axmed, TV Universal, magaalada Muqdisho.